Korintuska koowaad cutubka saddexaad. Anna walaalayaalow idinlama aan hadli karin sida idinkoo ruuxa raaca, laakiin idinkoo jidhka raaca, sida kuwo ilmo yaryara oo ku jira Masiix. Waxaan idin siiyey caano idinma aan siin cunto, waayo weli ma aydnaan cuni karin, haatanna weli ma aad kartaan, maxaa yeelay weli jidhkaad raacdaan, waayo intii xaasidnimo iyo ilaaq dhexdiinna ku jiraan miyaydnaan jidhka raacsanayn. oo sida dadka miyaydnaan u soconayn, waayo markii mid yidhaahdo anigu waxaan ka mid ahay kuwa bawlos, mid kalena anna abolos, miyaydnaan dad ahayn. haddaba muxuu yahay abolos, bawlosna muxuu yahay? waxay yihiin midiinyadii aad xooggooda ku rumaysateen, oo mid kasta sida rabbigu u siiyey isaga. anigu waan beeray, abolosna wuu waraabiyey, laakiin ilaah baa koriyey. taa aawadeed waxba ma aha kan beeraa ama kan waraabiyaa, laakiin waa ilaah kan koriyaa. kan beeraa iyo kan waraabiyaa waa isku mid, laakiin mid kastaa wuxuu heli doonaa abaalkiis siday hawshiisu ahayd. waxaannu nahay kuwa ilaah la shaqeeya, idinkuna waxaad tihiin beerta ilaah iyo ilaah dhismihiisa. sida dhise xigmad leh, waxaana asaaskii ku dhigay nimcadii ilaahay siiyey, oo mid kalena wuu ka duldhisayaa, laakiin mid kastaa ha ka fiirsado siduu uga duldhisayo. waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane, oo ah ciise masiix. laakiin nin hadduu aasaaska ku duldhiso dahab ama lacag ama dhagaxyo qaali ah ama qoryo ama caws ama bal, nin kasta shuqulkiisa ayaa la muujin doonaa, waayo maalintu way caddayn doontaa, maxaa yeelay dab baa lagu muujiyaa. waayo nin kasta shuqulkiisa caynkuu yahay dabka ayaa tijaabin doona. nin uun haddii shuqulkiisuu ku duldhisay hadho abaal buu heli doonaa. nin uun haddii shuqulkiisu gubto wuu khasaari doonaa, isaga qudhuususe wuu badbaadi doonaa. laakiin sidii wax dab laga soo baxshay oo kaluu u badbaadi doonaa. miyaydnaan garanaynin inaad tihiin macbudka ilaah oo ruuxa ilaah idinku jiro? nin uuni hadduu macbudka ilaah kharribo, isaga ilaah baa kharribi doona, waayo macbudkii ilaah waa quduus kaad idinku tihiin. ninna yuusan iskhiyaanayn. haddii nin dhexdiinna joogaa uu u malaynayo inuu wakhtigan xigmad leeyahay, doqon ha noqdo, si uu xigmad u yeesho. waayo xigmadda dunidan doqonnimay la tahay ilaah. waayo waxaa qoran, isagu kuwa xigmadda leh ayuu khiyaanadooda ku qabtaa, oo haddana rabbigu waa garanayaa tashiyada kuwa xigmadda leh inayan waxba tarin. taa aawadeed ninna yaanu dadka ku faalin, waayo wax walba idinkaa le, ha ahaadeen ama bawlos ama abolos ama kayfas ama dunida ama nolosha ama dhimashada ama waxyaalaha haatan joogaa ama waxyaalaha iman doona, dhammaan idinkaa le. idinkuna kuwa masiix baa tihiin, masiixuna waa kan ilaah.